aya fiican hambaliyo aroos wacan ayaan leenahay fanaanka lagu magacaabo Ilka Case iyo Nicimo Joker oo maanta si rasmi ah meherkooda u dhacay waana mid markaasi lagu farxo oo dad badan oo fanaaniin iyo dad badan oo markaasi YouTube ah aad markaasi ugu soo hambaliyeedeen lama filaan ayay noqotay marka la fiiriyo inkastoo farxad ay tahay haddana arooskan Ilka Case iyo Nicimo Joker dad badan ma aysan filaynin in markaasi ay isguursanayeen laakiin maanta ayuu markaasi meherkooda dhacay dad badan ama fanaaniin badan ayaa u soo hambaliyeeyay oo aad markaasi ugu farxay guurka iyo nolosha cusub ay markaasi sameysteen fanaanka lagu magacaabo Ilka Case iyo Nicimo Joker haddaba meherka maanta ayuu dhacay waxaana sidoo kale la sheegay in $50,000 markaasi meher ahaan uu ahaana meherkii ugu qaalisanaa marka la fiiriyo haddaba fanaaniinta u soo hambaliyay waxaa ka mid ah Hodan Abdiraxmaan ayaana aad markaasi ugu soo hambaliyeysay Ilka Case Qays iyo waliba marwadiisa cusub Nicimo Joker sidoo kale fanaaniinta waxaa ka mid ah Nimcaan Ilaaca ka mid ah sidoo kale Idla Yare ayaana ka mid ah markaasi dadka u soo hambaliyeeyay oo aroos wacan markaasi soo dhahay Nicimo Joker iyo waliba ama boqorada shanta Soomaaliyeed Nicimo Joker iyo ninka lagu magacaabo Ilka Case haddaba dad badan ayaan filaynin marka la fiiriyo arooskan inkastoo markaasi fanaaniinta ay aad ugu farxeen muddooyinkii dambe waxaa taagnaa dagaal u dhexeeyay Daahir Cali Sow iyo waliba Nicimo Joker laakiin hadda waxaa moodaa in dagaalkaasi markaas uu soo dhamaan karo maadaama Ilka Case Qays uu markaas yahay fanaaniinta ugu caansan marka la fiiriyo shanta Soomaaliyeed haddaba hambali ayaan leenahay Nicimo Joker iyo Ilka Case Qays
ubatiyo ayafian ubatiyo ayafian ubatiyo ayafian